kulan wada tashiya oo iskugu yimaadeenna qaar ka tirsan ururada bulshada rayidka uu soo qabanqaabiyey golaha badbaadada koonfur galbeed Soomaaliya ayaa ka dhacay Muqdisho. Kulanka ayaa waxaa looga hadlay mustaqbalka maamul wanaagga bulshada Shabeellaha Hoose, nabadgelyada iyo adeegga bulshada sida caafimaadka, waxbarashada, biyaha, beeraha iyo xoolaha. Sidoo kale kulanka ayaa looga hadlay dib u heshiisiinta iyo ka qayb qaadashada nabadda. Kulankani oo ay ka soo qayb galeen odayaal dhaqameed, nabadoono, salaadiin, qaar ka mid ah guddoomiyaasha gobolka Shabeellaha Hoose ayaa dhammaan waxa ay isku raaceen in gobolka Shabeellaha Hoose ay ka jirto xaalad u baahan badbaado. Kulanka kadib ayaa warmurtiyeedka ka soo baxay waxaa warbaahinta u akhriyey wakiilka gobolka Shabeellaha Hoose ee u fadhiya golaha badbaadada koonfur galbeed Cabdisalaam Maxamed Ibraahim. qaasatan gobolka Shabeellaha Hoose war-saxaafadeed shirar wada tashi oo ay isu yimaadeen maanta 11 Janaayo sanadka 2019 qaar ka tirsan ururada bulshada oo uu soo qaban qaabiyay golaha badbaadada koonfur galbeed ee Shabeellaha Hoose. war-saxaafadeedkaas waxaa soo baxay qodobada soo socda. Lambar 1 xasilooni daro kusoo kordhaysa taasoo qalqalgelin kara amniga iyadoo qarka lagu saaran yahay isu socodka gobolka Shabeellaha Hoose gebi ahaan inuu hakad galo. Lambar 2 gobolka Shabeellaha Hoose waxaa kusoo kordhaya xaalad daro cusub oo aan horey loogu arag, taas oo ay ka mid tahay wax lagu magacaabo migepe, kuwaas oo la yimid xadgudubyo dheeraad ah sida hantida dadweynaha, taas oo ay geysanayaan dad ku labisan dharka ama dariiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Lambar 3 ma jiro isbitaal weyn oo ka shaqeeya gobolka Shabeellaha Hoose dadkiisa lagu qiyaaso 1,200,000 oo qof oo haysato xaalad daro caafimaad ka taagan gobolka Shabeellaha Hoose. hay'adaha caafimaadka dhammaan way ka gaabiyeen in ay wax ka qabtaan xaaladda caafimaadka ee gobolka Shabeellaha Hoose. waxaa jiro biyo yaraan gobolka Shabeellaha Hoose. guud ahaan gobolka waxa uu ku tiirsan yahay webiga Shabeelle, sidaas darteed webiga ma gaaro guud ahaan degmooyinka gobolka Shabeellaha Hoose, gaar ahaan degmada Sablaale. kadib dowladii kacaankii dhexe markay burburtay waxaa meesha ka baxay kaabayaasha dhaqaalaha sida webiyada iyo buundooyinka iyo kanaalada. dadka degmooyinka Kurtugani iyo Sablaale ma gaaro gebi ahaan caafim oo wax loo yaqaano biyaha waraabka ee beeraha. Lambar 5 xaaladda waxbarasho la'aan oo ay haysato gobolka Shabeellaha Hoose. sida aan hore u sheegnay, gobolka Shabeellaha Hoose waxaa ka jirto xaalad waxbarasho dari iyo goobaha waxbarashada oo yar awood. markii dowladii kacaankii dhexe ay burburtay iskuullada qaarkood waa la tiriqaystay. waxaa jira iskuulo yar oo private sector ah. dhammaan iskuuladii dadweynaha loogu talagalay halkaas ayay ka baxeen. taasi waxay sababtay in ay keento in la waayo waxbarasho oo tayo leh, mise afka qalaad wax lagu yaqaano quality education. Lambar 6 shaqo yaraan haysto dhalinyarada wax baratay ee gobolka Shabeellaha Hoose ka soo jeedaan, taasoo gebi ahaanba aysan helin fursado shaqo dhanka dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dhanka maamul goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya, taasoo sababtay dhalinyaradii wax barteen gebi ahaanba in ay ku harsan yihiin magaalooyinka iyo degmooyinka ayagoo aysan helin fursado shaqo. Lambar 7 maamulka Shabeellaha Hoose inta badan aan laga qaybgelin dhalinyarada wax baratay ee ka soo jeeda gobolka Shabeellaha Hoose. qodobkaas wuxuu aad iyo aad u tibaxayaa ama uu tilmaamayaa
dhalinyarada wax baratay ee gobolka Shabeellada Hoose soo jeedo waxaa la doonayaa in ay kaga qayb qaataan maamul wanaagga iyo dhammaan maamulka ee gobolka Shabeellada Hoose fariin ama baaq soo jeedin waxaan fariin u direynaa dhammaan bulshada ku nool Shabeellada Hoose gudaha iyo dibadda in ay midoobaan sida dhibaatada gobolka Shabeellada Hoose xal loogu gaaro ama xal loogu helo waa fariintii koowaad fariinta labaad in dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya ay wax ka qabato ciidamada kulbisan dharka dowladda kuwaasoo dhibaateynaya shacabweynaha ka soo jeeda gobolka Shabeellada Hoose iyo dadka ku safra gobolka Shabeellada Hoose lambar 3 waxaan kaloo fariin u direynaa maamulka cusub ee Koonfur Galbeed ee Soomaaliya oo loo doortay mudane madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigareen maamulkaas cusub fariinta u direynaa waxay tahay in ay wax ka qabtaan xaaladda adag ee ku sugan yahay gobolka Shabeellada Hoose gaar ahaan dhinaca nabadgelyada ama amniga lambar 4 waxaan ugu baaqaynaa dowladda federaalka Soomaaliya kan maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya in dib lagu dhiso ciidankii nabadgelyada ee booliska Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ee laanta gobolka Shabeellada Hoose lana howlgeliyo saraakiisha iyo ciidamadii loo tababaray gobolka Shabeellada Hoose ee hore banaanka uga tagay mahadsanidin golaha badbaadada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya qaybta Shabeellada Hoose